gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa maanta la kulmay dhigiisa Nairobi County Dr. Evans Kidero waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira iskaashi iyo wada shaqeyn dhexmara labada maamul. kulanka oo ka dhacay xafiiska gudoomiyaha gobolka Nairobi ayuu ka codsaday mudane Muungaab dhigiisa Nairobi arrimo badan oo la xiriira dhinacyada dawlad wanaagga, ururinta canshuuraha bariga, maareynta musiibooyinka ka dhasha dababka, maamulka dhulalka danta guud iyo arrimo kale oo muhiim ah. markii uu soo dhamaaday kulankan ayay labada gudoomiye waxay si wada jir ugu sheegeen warbaahinta inay yeelan doonaan xiriir joogto ah oo wax wada qabsi ah isla markaana u dhaxeeya labada maamul. gudoomiyaha gobolka Nairobi runtii aad iyo aad ugu mahadsan yahay inuu halkan u casuumay. waxaan yeelanay kulan bilow ah aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan runtii booqasho ku nimaado. waxaan kala hadli doonaa sidii iskaashi uu dhexmari lahaa Nairobi Muqdisho, sida aan khibradaha isu dhaafsan lahayna, sidii Muqdisho yani ay ugu faa'iideysan lahayd runtii khibradda maamulka uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolkan yani khibradooda. arrimo badan ayaan ka naqaashnay ay ka mid tahay sida maamul wanaagga iyo maareynta qashinka iyo dimuqraadiyeynta yani magaaladan sida maamul la doortay ayaa jooga sidii Muqdisho idan u gaari lahayd iyo guud ahaan urban planning-ka. haddana waxaan la geli doonaa kulamo gaagaar ah oo fi nihaaya insha Allah taala aan gaarino mustaqbalka in la mataano Muqdisho Nairobi. inta uu ku guda jiro booqashadiisa uu ku jooga magaalada Nairobi ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu la kulmi doonaa xubno kale oo ka tirsan dawladda Kenya iyo qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee jooga dalkan Kenya. Axmed Nuur Cali Maxamed, Universal TV, Nairobi.